waxaan jeclaysan inaan bulshada la wadaagno waxaa jirta xaalada soo koror ah oo xanuunka caabuqa COVID-19 oo aan dareemayno maalmihii la soo dhaafay laga soo bilaabo 25 Oktoobar ilaa maanta oo bisha ay tahay 10 balse wasaaradda caafimaadka waxay si joogto ah u waday dadaalada baadigoobka xanuunka haddii ahaan lahayd baaridda oo si joogto ah u socotay haddii ahaan lahayd waxa loo yaqaan community surveillance ama dhexgalka bulshada ee sar u qaadida wacyigooda iyo mar walba la socodka xanuunkan iyo isu socodka dadka sidoo kale in la dabagalo dadka xanuunka weli qabay ee aanan ka bogsoonin iyo sidoo kale dad new infections ka xaaladooda wuxuu ahaa dadaal si joogto ah u socday u jiray isbitaalka Dimartino waa isbitaalka mar walba diyaarka u ahaa inuu qaabilo lagu daaweeyo lagu la tacaalo wuxuu weli qaabilay bukaanada qaba xanuunka COVID-19 iyo kuwa isaga shakiyay intaba sidoo kale waxaa gobolada dalka looga soo evacuate gareeyaa oo la keenaa dadka xanuunka qaba waxaa inoo jiifa bukaano ka yimid degmada Afmadow sidoo kale maxaa la lahaay Doobley iyo sidoo kale gobolada galgaduud bukaano ka imaaday oo xanuunka COVID-19 maxaa la yiraahdaa ee qaba oo laga helay sidoo kale guud ahaan dalka xanuunku soo laba kacliyay 3 toddobaad ee ugu dambeysay Somaliland iyo Puntland numberka aad u batay waxaa laga helay 146 bukaan ah toddobaadkii ugu dambeeyay hadda sidoo kale geerida way soo number ayaa ku soo kordhay oo inay 3 qofood maxaa la xanuunka u geeriyootay 3 toddobaad ee ugu dambeysay marka waxaan u baahanahay in mar walba waxaan dareemeynaa inaan galnay hirkii labaad ee xanuunka waxaan dareemeynaa inaan u baahanahay inaan taxadarkeena iyo wacyigeena kor u qaadno sidoo kale waxaan dareemeynaa in bulshada mar labaad baraarugto wacyigoodu kor u ahaado la taxadaro intii la sameyn karo kala fogaansho iyo xisiga in lagu haayo inuu xanuunkan jiro ka wasaaradda ahaan runtii waa dadaaleynaa isbitaaladii loo asteeyay waa diyaar qalabkii loogu talagalay waxay wasaaraddu ku dadaaleysaa maanta ugu dambeysay in sare loo qaado la kordhiyo awoodeena ICU-da iyo awoodeena sariiraha isbitaalka Martini Banaadir iyo haddii loo baahdo xarumo kale gobolka Banaadir waa diyaar xarumihii kale goboladana ayayna sidoo kale waxaan aad u rajaynaynaa in maxaa la howlgalaan oo si rasmi ah u shaqeeyaan marka fariinteena halkan waxay ku aadan tahay waa bulshada inaan wacyigoodii markaan kor u qaadno inaan ka baxno riyada ahayd isdhigashada ah xanuunka uu baxay ama naga dhamaaday Soomaaliya adduunka ay ka mid tahay wadamada oo mar labaad ku soo laba kaclay hirka labaad muddo anaga runtii Ilaahay waa naga hayay waana noogu dhib yareeyay anaga Ilaahay sida adduunka u mareynay runtii nooma noqonin marna laakiin waxaan rabnaa inaan bulshada u sheegno inuu xanuunki jiro in xaalada la arkaayo in weliba geeri ay jirto Ilaahayna ha inaga hayo oo aan taxadarno aad ayaan u mahadsantihiin.